السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ إنجنير محمد صالح أحمد oo saa uga barateen marar badan idinla wadaagay arrimaha ku saabsan waxbarashada iyo see looga faa'iideysan karaa opportunity-ga waxbarasho ee Western-ka aan ku haysan iyagoo carruurteennu yihiin talent. Today insha Allah waxaan idinla qaybsanayaa maxamed saalax ayaa waaye idinka idin daynaya muxuu inuu halkan la jiro ka jeeso xaq ma u leeyahay marka laga hadlo aqoon iyo khibrad idinkaan idin daynaya ma rabo inaan anigu iska hadlo. Teleconference anigoo ku jira ayaa gabar waxay tiri adeer before I ask you question can I ask you other question say yes waxay tiri adeer xaq ma u leedahay inaan su'aalaha ka jawaabto ama aan ku weydiiyo waxaan kala jeedaa aqoontaada maxay tahay dadka way qayliyeen maxaasaa macalinka u leedahay waxay qofta idinku daacadsan qoftaasi waa runteed hada calaa kul xaal waa u warramay bacdi waxay tiri yes now I can ask you okay waxaa jira lecture aan jeedsay last year sanadkii laba lecture baan jeediyay anigu that's my contribution to the community mar waxaan lahaa prepare for the examination February meelahaasaan qabtaa masjidada ama markaa wixii facilities aan helo waxaan ka hadlaa imtixaanka soo socda sida loo diyaariyo iyo gradekee rabnaa gradekee joognaa tuushin cunuga si loo caawiyaa iyo mid la yidhahdo back to school oo August oo kale markay soo baxaan GCSE-da ee levelska waxay dhan soo baxaan waxaan ku daray mid meelahaas u dhaxeeya oo haddoo kale ama markuu GCSE soo baxo hadda waxaan rabaa inaan sii qadinto kaas oo ah la socdo very important carruurteenna ka baxa GCSE UK waa very important general certificate of secondary education Somali waxaa la oran jiray SSLC Somali secondary leaving certificate tii ugu dambaysa anigu kulleyba aan ka soo baxay now form 4 okay waxaan carruurta ka baxaya GCSE-da oo 22-ka bisha soo socota waxba naga xigin soo bixi doona oo isla maalintaas kuleejooyinka tegi doona waayo offeriska la siiyo qayb ka mid waxaa la yidhaha conditional offer kasoo qaad waxaa rabtaa biology chemistry iyo physics waxay ku leeyihiin okay waa ku siinaynaa laakiin bishardi waa inaad keentaa grade 7-8 baan kaa rabnaa conditional halahaa offer so laga yaabaa inay star keento fiican marka waa inaa u geyso markaasay haddii kaleeto waxay ku leeyihiin sug maanta kale aan ku haynaa ama carruuraha buundadaas ayaa marka hore xaq u leh aan soo noqdo carruurtii waxaan u qaybiyey 3 qol carruuraha ka baxaya waa luqad simple aa fahmi kartaan resartigii baan ka hadlaya markuu soo baxo carruurtii 3 kalar baan kala siiyey waxaan idhi waa green group A baan ka dhigay amber ama Somali muxuu ahaa jaalle green waa taqaanay waa cagaar A green B waa jaalle lase jaalle yellow is English and group 3 red baan ka dhigay group 3 doesn't mean that inay too bad yihiin laakiin ujeedaan kala jeeda waxaan idhi group A gabdhaha u badan qoladaasi waa qolada wax ku baranaya waxa kan la yidhahdo strategic learning oo waxay lahaayeen gabdhaha u badan oo markay yarnaynahayd adeer abti I want to do a medical I want to get grade 8 my GCSE biology and chemistry and maths and English 6 minimum and to be there I know what to do here so they learn to study at home now qoladaas strategic learning is la yiraahdaa qolada koodu u badan yihiin they will get it 9 A iyo 9 grade 8 iyo 9 grade 6 7 iyo 5 6 no 5 at all it happens groupka green baan u bixiyay very heat green okay groupkaas marka alxamdulillah wiilashu waa ku jiraan laakiin gabdhaha ka badan groupka wari kama jiro grade 8 bay sugayeen targetkoodu yahay 9 iyo 8 iyo 7 bay heleen kuleedkay rabaan bay tagayaan maadaday rabaan baa la siin doonaa September bay balaabi doonaan Allah u fududeeyo
in la socdo emotionally, mentally, psychologically, waa both topically. Groupka labaad yelowga aanu bixiyey ila socda si fiican. Groupka yelowga ah gabdho iyo wiilal waa ku jiraan. Wiilashu halkaa xoog bay ku leeyihiin. Groupkaasi maxay yihiin? Groupkaasi waa group targetkoodu sarreeyo. Ability wisena meel fiican gaari karaa, laakiin mararka qaarkood potential koodii ma soo baxayo. Yeah, I'm okay, yeah, I can be 9, but I'm 5. My teacher told me I'm on my target. Yeah, what about 9? Did you not aim high? I don't know why. qalbigooda waxbarashada kuma xiran. So groupkaas badankoodu waxaa laga yaabaa okay 655 667. Okay, groupka laakiin dhib waa group u baahan mar kastaba in hadba la xasuusiyo. Wow, yes, groupkaas qaarkood markii hore baa igu they don't care. Okay, maybe maybe physics, might be maths, they can. Groupka marka maxaa dhici karaa? Groupka waxaa dhici karta qaarkood inay waayaan. Soomaalidu ambitious. Isagoo grade 7 wuxuu rabaa inuu grade 9 shaqa meel u dhigata helo. Waxaa laga yaabaa xoogaa inay dadka xumaato. No, don't get what I wanted. Group waxaa kaloo dhici kartaa inuu isagoo rabo biology oo dhakhtarnimo raba wiilashaan ka soo qaadaynaa uu dhaho la yidhaahdo sorry biologygii 4 baad keentay oo dadka xumaato uu dhaho okay business aan baranaa sida idin sheegaa maanta laakiin inaa u sheeginina haddaa aragto arday dhahayo business aan baranayo IT maaha qof raba inuu barto laakiin arrintaas idinka le waaya hadda idinka le waaya qofka la kala leeyahay laakiin ogaada just fill the gaps now niyadaad ku xumaanaysaa taas waa mid ama maadooyin ku xiga waxaa la siinayaa applied science iyo waxaa la oranayaa okay gabdhihii psychology baan ku siinaynaa instead of physics or chemistry halkaa xoogaa setal talay markay marayaan qoladaas talay u baahan yihiin ujeedadu waa tan marka qolada talay u baahan yihiin okay gabdhaha hadday ku jiraan gabdhuhu ambitious tar weeye morally way xanuunsanayaan gabdhaha waa in la yidhaha dhegeyso adiga maxaa rabtay grade 7 maxaa keentay grade 5 maado muhiim ah laba bishi maan haysanaa kuleejka inay tiraahdo okay I will redo again that subject ama inaad private college geysaan oo parallel lacag fiican ka bixisaan kuleejkuna wuxuu sii siiyo sii qaataan laakiin sanadka ku talagal inaana sanadkayga maharay laakiin waa sii qaadanaya kasoo qaad waxaa la siiyey biology iyo maths iyo psychology laakiin anuu physics baan rabay physicskii 5 baan keenay this November baan samaynayaa privately way numberkii already waa haystaa January aniga physics baa iyagu waan tusaale wey January baan iskoolka waxaanu keenayaa grade 8 markaasi okay don't worry September soo dalbo maadada rabtay waa helaysaa haddii alternative maado la siiyo u dhow as long as maadooyinkaasi ay israaci karaan jaamacaddana ku gey karaan war kale inaga dhibteena haysta carruur badan oo level samaynaya they don't know why they doing this hadda googolka gala jaamacadaha fiirsha maadooyinka si sugnaa raacaan fiiriya haddii kale daa qaata ka waran business iyo english iyo muxuu ahaa psychology ka aadaynaa isma raacdo laakiin wax israacraaca wax kasta ahaada wax isla raaca ugu yaraan 2 3 say isu raacaan biology chemistry psychology sociology and maths physics iyo something else economics maths iyo chemistry and IT accounting economics engineering computer science physics maths business financial accounts business economics maths siduu waa key now qolada marka halala socdo oo ha la yidhaahdo okay haddii wax ku soo noqdaanna aada loo caawiyo niyadda ka xumaata soo qoladaa don't worry waqti yaadnu ina cayrin pressure yaan la saarin tartan yaan la gelin don't worry waxaa muhiima targetkeena u socno cunugaas targetkiisu hadduu yahay inuu dhakhtarnimo galo
biologina 5 keeno oo sanadkan loo waayo adduunka ma dhammaan yoon wari baa le ballan ilaahay waaye tuushin 10 kuna kaa bixina inaa biologiga grade 8 keento ilaahow 2 sano qaato laakiin heblo cunugeedii baa halkaa mar haddaad tiraahdo lagu arki maayo ama xagee lacag ka keenaya cunuga wax ku bartaa wax kasta ka muhiimsan lacagtaas hama tarto human investment adduunka wax la investigareeyo oo profit laga helo waxa ugu barasha ugu sarraysa waana taa dad badan sharaaf u yeeshay aqoon la'aanee dad badan hoos u aadeen true story markaa leynaa facts waay opinion maaha wax aragtaa maalin kasta quraana quraanka ilahay ku sheegay aqoontana ilahay baa dadka ugu fadli yeelay ilahay baan u fududeeyey laakiin weli we have an opportunity qoladaa dhexe markaa yaa la socdo weliba wiilashii halala socdo weliba sanadkaa koowaad ee kuleedka halala socdo hadduu wax koofar-garaynaya hala dhammaystiro haddii uu jaranjarta fuula iyo sanadka koowaad ee kuleedka year 12 waa taf kuleedka GCSE ma joogno guriga halla waxay ku sudaaday ma jirto carruur badan waxay oran doonaan marka hooyo ama okay tribo keen kasoo aad English iyo maths ama maadadu rayna ku cesho wuxuu ku leeyahay I'm okay I will do again November we're the same person they don't know what they don't know ha ka yeelnina I'm okay ha ka yeelinina u qabta pressure saar ha ka yeelnina waayo waxaa arki doontaa ilmo kuleedka dhiganaya 2 sano oo June November afar imtixaan ku dhacay you know why he doesn't know what he doesn't know weli same mistake buu samaynaya xisaabtana algebra iyo data shapes baa ugu dhib badan laakiin waa in la yidhaahdo maxaa talaa halkaa markay marayso oo ilmuhu dhaho qolada hadda soo socota reerka waa u badan qoladaas I'm okay ha ka yeelina talada waxaan dib ugu dhiganaya qolada reerka aan u bixiyey baan dib u dhiganaya now soo qolada marka sanadka ugu horeeya labay noqonaysaa inaan sanadkaas ka saarno buurta ka saarno iyo inaan hadday ritaan iyo samaynayaan la caawiyo inaan ka harin oo punctuality-ga iyo preparationka iyo wareegaan isa gelin haddii kale hoosay aadaya khatar wey waa meesha laga leexdo very important messagekaas gruubka marka aan u bixiyey reerkaan la socdo gruubka reerka aan u bixiyey wiilasha majority ah green maxaa nidhi gabdhaha majority ah halkan ya majority iyo wiilasha wiilkaasi markuu secondary yimi 2 qolo ahaa qolo targetkoodu 7 iyo 6 bay ahayd laakiin hadda 2 3 buu ka bixi doonaa qolona marka hore learning difficulty iyo whatever u qabo grade 2 iyo 3 buu kaga bixi doonaa now gruubka marka ability wise hal baanu dooni doonaa ability laakiin waxaan ka hadlaynaa gruubka waxaan ka hadlaynaa 7 iyo 6 iyo 5 targetku ahaa laakiin kaga baxaya 2 iyo 3 you know why shantii sano lasoo dhaafay dagaal rabsho report on call exclusion external exclusion behavior school intaas u dhaxeeyay iyo maam waan la koray qoladaas waxaa khatar ah oo ay 80% u dhow yihiin 2 sano ka bacdi inay xabsi galaan oo dagaal galaan waxaa la avoid to fail waxbarashadii baa ku adkaatay maskaxdii ma shaqaynayso physically buu koraya identity buu samaysanaya yeemaan identity buu samaysanaya uu wax ku yahay wuxuu rabaa inuu wax challenge garayo booliiska challenge garayo adiguna wiilkaygii zayeera oo inaad taaganta halkaas maxaa talaa marka qolada haddaan ku hormaro abilityga qolada abilityga iyaga hasbinina oo ay star marka hore ka filinina macallimiinta la shaqeeya kuleedka markay aadayaanna iyaga waa la caawinaya waa la wadaya 3 sano soo socota social skills iyo grade 3 iyo hadday gaaraan well and good qoladii marka wiilasha u badnaayeen gabdhahana hadday qolo ku jirto panic baa ku dhaca markii imtixaanku soo dhowyo xanuustaan waayo intii la rabo inay wax revision sameeyaan oo wax qoraan oo wax akhriyaan waqtiga way dhumiyaan social media ku dhumiyaan
imtixaanadii xanuustaan waa ogtihiin si fiican baad ula socotaan ummadaas si fiican baad u ogtihiin soo galaya si fiican baad u ogtihiin now soo marka qoladan sheegay qoladan aan sheegay oo reerka ah haddii already year 10 year 11 lagu soo eedeeyey midii qaateen dagaal bay galeen group bay ku jiraan boosta kood bay samaysteen gaangi member weeye September waxaad iskool ugu dirto maba taal meeshaan sirtaas waa idiin sheegay September haddaa kuleej u dirto waad caawintay December baan aniga idinku sheekaysanaynaa iyo January markaas waa idiin siitay sidii nebiyada ugu digi jireen dadkooda waan dilayaa 24 years oo secondary waxbarashaan khibrad u leeyahay anigu waxa weeye moo saaxiib buu sii yeelanayaa more problem baa dhacaysa more robber baa dhacaysa more dagaal baa dhacaysa hadda maxaa leedahay wayo wuxuu oran doonaa wayo don't worry I will retake waa run retake sax nooca carabiga kelimad oo maxay kelimad saxa laakiin dacadlay been way war adigoo yar GCSE oo lagu baryaayo oo inta macallin kula fadhiya qaati lagaa taagnaa ma kuleejka oo leeyahay 6 saac la imanayo 20 jir joogaan baad fariisanaysaa imtixaan baasa oo 12 group iyo baabuur iyo mobile kugu soo dhacayo waa sheegin adiga halkaa markay marayso iska ilow waxbarasho iyo soo lacag baan ku qaataa iyo waxbuu baranayaa iyo allah saddex u ilaali arrinta iga faa'iista maanta saddex u ilaali arrinta ka hadlayo saddex u ilaali iimaankooda ilaali maankooda ilaali jirkoodana ilaali oo maxay kala tahay iimaankooda ilaali hadal weyn way maankooda ilaali maxaan ka wadaa you know them talking about jirkooda ilaali cabad iyo midiyay ku dhicin adaa yaqaan meeshaad markeenayso marka kuwaas waa qolo kalaa jirta oo qolada guduudka la socda le halkaan midiyey iyagu midiye ma wataan gaangina kama tirsanaa laakiin waxbarasho uma jeedaan gaabida kingeyn buu cayaarayaa subaxdii kuleejka wuu seexan doonaa meelna uma socdo qoladaas waa in sida canuga yeera 8ka ama yeerni 8 weyn waa qolada yeer 6ka iskuulka la geeyo iyo yeer 5ka arrinta ila socda si fiican carruurta yeer 5ka iyo yeer 6ka soo irid lagama geeyo oo lagama soo noqdo hadalkaas la socda oo soo 6 saac soo 3 looma tago oo lagama soo kaxayo qoladan ka hadlayo oo grade 6ka 7ka ahaa oo 2 iyo 3 keenay oo ku dhigi doona retake baan samaynaynaa laakiin weli aan rabsho ku biirin yaan la aaminin gacantaa la qabto waxaa la ilaalinayaa timetablekooda tendensigooda punctuality on time inay tagaan waxaa lala soconayaa saaxiibaday la socdaan waxaa lala soconayaa timeka guud ahaan maalintii waxay qabtaan maadooyinku ay ku dhaceenna ha ka yeelin I'm okay ingiriis hadduu ku dhacay macallin professional oo qabanaysaa 10 saacadii 40 I don't care waxaad leedahay please 10 imtixaan ha lagala shaqeeyo very important labadaas sano 10 kun ku baxdo waa noloshiisa fikiraysa maths sidoo kale AQA hadduu yahay Excel ama OCR sidoo kalena 10 markuu imtixaanka retake soo dhow yahay badana hadduu foundation yahay kuleejka caadiga weeye hadduu laakiin private u geyso tutors waxay wada samayn karaa because adaa diyaarsanaya sanadkaa koowaad waa inaan ka saarno maxaan faa'iidaynaa maxaa dhici doonta niyaddaa ka xumaanaysa iskuulka wuxuu ku oranayaa retake baan ku siinaynaa inaad dib u samayso English maths laakiin full time baan kaaga dhigaynaa marka IT iyo business baan ku siinaynaa dowladda lacag bay bixinaysaa isagu muxuu oran doonaa aniga niyaddayga waxaan business ma rabo businesskii buu u goynayaa conditionka marka waxa waye punctuality iskuulka bacdaama businesska u gooyey June next year imtixaanka gaari maayo out bay oranayaan markaas ka xiran tahay
waa isku xiranta laga yeeli maayo businesskan goynaya ingiriis baan imanaya atanan isaga fiirinaya sidaa daraaddeed war haddii music la yidhahdo music waa inaad guriga kula diyaariso su iskoobka u qanciyo aan loo cayrin su imtixaanada u galo kuwaasoo qolo soo sanadka sebtembarta soo socda labay noqonaysaa hadduu maado markii hore baasajiisa sidoo maadooyin kale la siiyana wuu ka dhammaada sanadka koowaad sanadka labaad kuleejka u gudbaayaan year 13 is nearly there waa ka soo fikira sanadka koowaad hadduu retake ahaana already November iyo June buu baasayaa oo maadooyinka ku soo noqday niyadda usoo dhismaysa kuwaasoo qolo maaha qolo kalaa jirta what about kuwii keenay grade 2 gabdho iyo wiilal waa tiriigii ruuxooda marka hab kalaa jira marka tiriiga oo aan ka soo booday qoladaas aan ka sheekeynaya gabdhaha iyo wiilasha meesha oran lahayd orod retake sameeyo physics maths sameey waxaad oranaysaa okay t level qaado t level oo koorsiin cusub qofka ninka waa taqaanaa 1 2 3 wata waxaa la dhigay t level qaado gabdhaha waxaa la health and social care qaado soo labada sano oo ay professional u wadaan farsamadii u wadaan iyo u wadaan t levelkii u wado iyo mechanic u wado wuxuu la wadayaa English maths 3 years time ama jaamacad buu aaday ama shaqaysanaya gabdhahana sidoo kale taasaan ku tilinayaa boqolkiiba 80 labaatan waa idinkaas what about qoladii keentay you iyo astaghfirullah let's say you uncredited iyo grade 2 iyo 1 grade 2 iyo 1 kulaajka markuu ku qaato 17 u gudbaysaa waxay ku oranayaan iska ilo GCSE sorry coming 4 years caruurta yeerneenkaa soo gaari doona ilmahaas waxaa lagu leeyahay okay functional skills level 1 level 2 then foundation baad soo gaari doontaa goorma weeye sanadka soo socda iyo sanadka ku xiga sanadka saddexaad baa GCSE ku ogolaan doonaa xariifkii hadda halkii sanaan ahayn weynay kuleejooyinka ma 3 years foundation hoos u noqonaya oo GCSE aan ogeyn oo halkaa isagoo dhex jooga dhaqaajin waaye baa GCSE iman doona oo GCSE ka bixi doona 6 sano qof cusub baa qofkaan dhaqaani wey maxaa tala haddana laba tala waxa waaye grade 2ga waa lagu qaataa level 1 buu ka bilaabaya mechanic electric plumbing gabdhuhu health and social care business kulli waa laga bilaabaa level 1 way haddaad grade 4 haysto kale level sare ka bilaabaysa waa talo fiican what waalidku waxay aad u jecel yihiin ilmahayga waxaan rabaa inuu baaso gabar baan tuushin u dhihi jiray walaalkii yarteena years ago yarkaas maasha allah yarteen waay imtixaan wuxuu keenay 63 out of 63 British secondary school it was Somali Mariole ardaygii ugu horreeyay taariikhda kuleejkaas waa hal buundo qaldin buu noqday aabihii Soomaali maasha allah aan liqaa waa khiyaara weliba awiisa sheega وكان أبوه صالحا ما سوى حسوستي من أمانها مركي الصومالي على ديكتو وعلى وجري محمد صالح قبل أن قبل السنة كوري واحد كانتي واجاس كري تو مجرين فانكشنال سكيلز بدقتها قبل امتحانها كلا الشقاية كريت في عمل سوق سي اسكول كيف كنتري بليس امتحان كلا يدل عليه رالي هاو according to our books GCSE waxaa samaynaysaa dhowr sano ka bacdi gabadha waxaan kula talinay inay kuleejkii markii dambe waa ka bedelatay waxay u bedelatay kuleej kale marka maxaa tala ah marka anagii waxaa la yiri grade 1 baa samaynaysaa level 1 functional skills taladii sheegay marka anagan warqadda GCSE la soo siiyey unique number baa ku yaala oo ah inuu GCSE fariistay dhageysta marka maxaan samaynayna ila socdayaa si fiican ila socda warqaddaasaa qaadanaysaa
private tutor baa raadsanaysaa oo qoladaani wankan iyo ha ku hayeen roogkiisa ha aado baskiisa ha loo jaro free meal hadduu yaaqiisa ha wato tartiibtiina private baa la diyaarinaysaa xoog baa la saarayaa maadooyinku soo noqday private candidateska tegaysaan basabortka u geynaysaan maadadii ma garanayo iyaguma oga kuwan shaqa kuma leh waxaa leedaha November baa rabaa GCSE inuu galo cunugaygaan anaa wato private waa iskoolkana muxuu yiri basta sana ka bacdo GCSE xaq u yeelanay maxaa faa'iidaa November buu galay laakiin ogow November iyo hadda holidayga shaqo badan waa in la qabto November sorry holidayga maaha holidayga hadda waa dhamaanayaa waxaan haysanaa September November baan haysanaa dhimale hase galo haddii kale waa istiraado waa too early dhimale private baa la diyaarinaysaa June soo socota oo uu ka gudbayo grade level 1ka functional skillska ayaa GCSE u bilabanaysaa caruursoona talent aad u caqli badan yihiin halka grade rotation dhigaa anaga wadanka 1 year baa lagu talagalay 1 grade anaga Soomaaligu 2 saac buu 1 grade kor u kici karaa iyo qoran anaa irtaas maxaa faa'iida marka kasoo qaad anugaagii November buu galay xaggan wuxuu ku jiraa level 1kii buu joogaa level ma joogaa functional skills November kuwaan shaqa kuma leh wax oo hadduu rabo ka jirtay maalinta imtixaan baa la yaanay radu geeyay imtixaan ma yadidi kara no sheeko ka shay shaqo talma ama idinku iseen ma yadhe okay in faa'iida anugii 1 keenay ama 2 keenay saddex mid bay noqonay the best inuu 5 keeno plus November foundation gelinayna hayar kuma qiimaan karno inuu 5 keeno meesha ugu sareysa ama inuu 4 keeno waa C ama inuu 3 keeno 3 waa dhacay laakiin maxaa faa'iida GCSE uu soo gaaray so hadduu January u geeyo warqadda grade 3 soo qaaday that's the worst iskoolku wuxuu yiri grade 3 buu Janaayo u geeyay iyagu 2 iyo 1 ku ogaayeen automatically waxaa loo ballaminayaa imtixaanka June oo GCSE way dhacday waa sameeyay hawshaas ana warkaa haya ninka keentay tani waa isdabaray tuushin waa dhigtay imtixaan laakiin hadduu June geli doono hayr loo diyaariyo way hayrka ayaa baaska ka gaars badan meesha foundationka 150 lagu baasa tusaale ahaan hayrku waa 80 oo kale waayo laakiin negative waxa weeye meelaad grade 2 heli lahayd foundationka waa you laakiin badanaaba hataa hayr uu sameeyo ilmahaasi wuu baasi doonaa minimum 4 buu keeni doonaa waxay la tahay inaan wax badan ka jawaabay wax badan inaan sheegay waxaan ka rajeynaya inaad ku noqon doontaan waxay la tahay inaan intaan rabo inaan sheego kastoon hadda meel ka akhrinayn intaan ku talagalay ama hore u sheegay inaan sheegay oo saddexdaa group kula kastaba aanan waxba dhaafin bay ila tahay kolleybana insha allah fiisada cajiladahaas meelahaas commentskana kusoo qora wixii su'aalaha muxuu ahaayey qabtaan ujeedadan ugu talagalay waxa weeye intaas maxaan ugu talagalay waxa weeye carruurteena Soomaalida inaan wada korino inaan wada hogaamino inay aqoon-yahano noqdaan inay bari wixistaraan inay idinka wixistaraan dadkooda inay wax taraan islaamka inay wax taraan ummadaha kale inay wax taraan Soomaaliya inay mustaqbalka wax taraan opportunity waa haysanaa waxbarasho free baan haysanaa laakiin hogaamin baan u baahannahay waxaa kaloo iga tala ah dad badan baa dhegeysan doona cajiladda wixaan dhegeysanna ha loo gudbiyo please boorsooyinkan furfuran carruurtaa leedihiin haddaa jaamacad ka baxdo Dubay baa aysa ka daayay waddan baa wax ku baray waddan waxaad tidhaahdaa Royal Infirmary baan rabaa inaad aragti ka noqoto iskoolkaasaa inaad macallin ka noqoto
macnaheedu maaha inaanay bixi hayn laakiin fikradda inagoo dhan baan raran carruurta waxay kule kulli oba haddaan inta jaamacadda baaso xagee aaday xagee aaday shaqa gal khibrad hel haddaa rabta hadhow tartiib ah arrinta saddexaad waxay tahay waalidow hooyoy waxaana ka hadlayo kuma filid waxaa jira video kale ku saabsan bridgekii iyo buundadii la dhex maraayey oo ku saabsanayd anug ee star wato gabdhaha greenkaa raacay oo islaantii single mom tahay carruurtii intii kale ku hartay oo kuleejkii inta dhegaha lagu dhiftay mobaylkii laga dhacay la yiri gaanga ku biir haddii kale ku abisgarayninaa oo yeelay faayo adeer iyo abti iyo walaal ma haysto oo meeshuu medical geli la xabsi galay cajiradda youtube ay ku jirto arki doontaan buundooyinkii la dhex marayay baan u bixiyey waxaan rabnaa marka bointiga muhiimsan wuxuu yahay carruurteenna insha allah 19 hadduu gaaro gabar iyo wiil aqoonna waa u kordhaysaa iimaan badani ma jiro haddiinaan shaqayn aqoonna waa u kordhaysaa caqlina waa u kordhayaa 20 maalintuu madax la galo hadduu rabo jaamacad yugelin wuxuu noqonaa isdaberi karaa laakiin meesha lagu jabay waxa weeye 15 to 19 weliba 16 to 19 ilahay waxaan ka rajeynayaa inuu saacadaasaan hadlayna miisaanka xasanaadka noogu daro intii dhegeysan doontana ilaahay inuu ku anfaco waxaan qalday aniga naftiida shidaan baa shaqo ku leh waxaan wanaajiyana ilaahay hanoo barakeeyo intaas baan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu